ogtahay in camalka salaada soomista bisha Ramadaan bixinta sakada gudashada xajka sugidda iimaanka iyo intii alle agtiisa ka sugnaatayba maalinta qiyaamo uu alle kaala xisaabtami doono alla aynu u noqono aynu samayno dadaal badan iyo istighfaar joogto ah si liibaanteena aakhiro iyo midda adduunba ugu hiilino nafteena ogtahay daawada in barnaamijkeena maanta aan ku soo qaadan doono qiso cibro qaadasho mudan aynu ku bilowna ee waxaa jiray nin hilible ama kawaanle ahaa wuxuu inta badan u gowrici jiray xoolaha sida lo'da iyo geela markuu soo gowraco wuxuu keeni jiray suuqa isagoona dadka ka iibin jiray hilibkaasi oo isugu jira lo iyo geel haddaba maalin isaga oo wadada maraya markaasna hawshiisii soo dhameeyay ayuu ninkii arkay haweeney wadada dhexdeeda taala oo dhiig ka qubanayo ama ka daadanayo isla markaana ooyeysa waa gabadha markuu u dhawaaday waxa uu ka war helay in mindi caloosha kaga taagan tahay haweeneydan wuxuu bilaabay inuu gargaar u fidiyo wuuna ka bixiyay mindidii caloosha uga taagnayd ama uga sudhnayd gabadhan waxaana meesha yimid dad fara badan waxayna ninkii ku eedeeyeen inuu isagu dilay gabadhan in yar kadib ninkii ayaa xambaaray gabadhii oo geeyay goobaha caafimaadka sidaas ayaana loogu qaaday dhakhtarka wax yar kadibse waa ay geeriyootay gabadhii maxaa dhacay markii ay xaaladdu ninku halkaasi marayso geerida gabadha kadib hore waxaan kuugu soo sheegay daawada in dad badan oo wadada soo marayay goobtii gabadha laga soo qaaday ee isla ninkani soo qaaday waxa ay sameeyeen inay dacweeyaan ninkan kadibna xabsiga ayaa la dhigay waxayna baadhistii socotay muddo badan ilaa dood badan kadib ayay maxkamadi go'aan gaadhay go'aankaasina wuxuu noqday in xukun daldalaad ah lagu sameeyo waxaana loo cayimay maalin hiblaayo in uu dhaco xukunkaasi waa xukunka daldalaada ah markii xaalku halkaasi marayo ninkii daldalaada lagu xukumay wuxuu cod dheer ku sheegay in uusan isagu dilin gabadhaasi waanu dhaartay laakiin qof warkiisa aamina oo ka qaada ayuu waayay waxaana la soo gaadhay maalintii daldalaada ahayd waxaanu ninkii intii aan la daldalin laga qoray qisada sheekadu ku socoto waxaanu ku bilaabay sida waxaan ahaa qof ka qadhaabsan jiray badda iyo hareeraheeda waxaan halkaasi ka soo saaran jiray cuntadeeda inta aanan hadda noqonin hiliblaha ama kawaanlaha maalin ayaan anigoo u socda xeebta aan ka qadhaabsan jiray soo raacay bas waxaana baskaasi ku dhex arkay gabadh aad u qurux badan waan la hadlay erey kastana waan ku idhi ugu dambayntiina waxaan u soo bandhigay guur iyo in aan waalidkeeda ka soo doonto balse wax walba way iga diiday sidaas ayaan ku kala tagnay shaqadeedii ayaan iska sii watay anigoo niyad jabsan waqti badan kadib ayaan isla sidii oo kale wada kulannay mar kale isla baskii weliba waxayna wadatay markaan kale aan kulmayno weeyaane wiil ama cunug yar oo ay dhabta ku haysatay waan la hadlay oo way iga sii fogaatay waxaan u sheegay in ay wax walba hadda ogolaato wayna iga diiday anigana waxa aan biyo madaxa u geliyay wiilkeedii yaraa sidaas ayuu ku dhintay wiilkeedii iyadana cabbaar markaan is haysanay aakhirkii waan ku soo jeestay iyadana waan dilay dembigii maalintaasi aan galay ayaa maanta sababay in aan god halis ah soo galo iyada oo dembigii aan galay darteed aan maanta ciqaabtiisa marayo aniga ciqaabtan waan ku qanacsanahay ee idinkana raadiyo qofkii dilay gabadhan daawada iyo dhageysta qisadan waxaan ka qaadan karaynaa waa in qof ama laba qof oo aad macno darro u disho adigoon aqoonin sababta aad ku dilayso weliba qariya dilkaasi in alle oo aan wax kastaaba ka qarsoonayn khayr iyo sharba dhacdo kasta ina arkaya in maalin uun kaasoo ifbixi doonto waxaad qarsanaysa oo shar ah qof kastoo sheekadan maqlayo kuma odhanayo sii faafi keliya haddii ay ku soo gaadhay naftaada xisaabi inta aan xisaabtii alle ee ina wada sugaysaa kuu iman naftaada bar wanaaga ka reeb safahaad صوم بشهر رمضان صوم بشهر رمضان صوم